maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan degmada Jowhar ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay dayactir lagu sameynayo qaybo kamid ah suuqa ugu weyn magaalada Jowhar. munaasabada dhagax dhiga ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meere Makaraan, gudoomiye ku-xigeenka Maxamed Cabdi Sheekh Xando, gudoomiyaha degmada Jowhar Cismaan Maxamed Mukhtaar, duqa magaalada Jowhar Sheekh Saalax Mudde Cali iyo qaar kamid ah ganacsatada magaalada Jowhar. qaybta la dayactirayo burbur weyn ka muuqda ayaa helin wax dayactir ah muddo 30 sano ka badan taasoo ku beegneed burburkii dowladii hore ee Siyaad Barre. waxaa goobta dhagax dhiga ka hadlay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meere Makaraan iyo duqa magaalada Jowhar Sheekh Saalax Mudde Cali. waxaa farxad ah 30 sano kadib burburkii ku dhacay dhulkan weyniga badan ee quruxda badan ee haddana saad u jeedaan marka hadda aragtaan ay tahay meel aan la fadhiisan jirin meel u eg ayaa Ilaahay wuxuu qadaray in maanta kadib dhismo uu yimaado la dhiso qaybtii rootiga iyo mooska. maamulka oo wasaaradda maarta howlaha guud iyo maamulka gobolka ee kan degmada iyo dhammaan hay'adda UN Habitat oo barnaamijkaas iska kaashahay waxa Ilaahay mahadiis inay maanta hawshaas noo bilaabatay. dhagax dhiga waxaan dhagax dhignay inay dadkii danyarta ahay oo meeshaan ku ganacsan jiray oo muddooyinkan ka muuqato inaysan ku ganacsan burburka ka muuqdo dhibaatada ka muuqato oo roobka aysan celihayn ayada dhexdeeda gudaheeda aysan wanaagsanayn in sidii ay ahayd lagu soo celiyo dadka danyarta si ay qoraxdan uga hersadaan ay roobkan uga hersadaan waxooduna ay maartay u noqdaan meel xafidan oo maartay waxooda ay uga ganacsan karaan sidaas ay maartay in dib loogu soo celiyo hadii la yahay rajayna hawshaasana maanta inta ka bilaabayso dadka meesha joogo oo wali ku dambeeyo oo miisaska ama maartay meesha gudaheeda ku jiro waxaan rajaynaa inay maartay sida ay u ahaa jirtay si ka wanaagsan ay maartay looga dhigi doono. Yusna Maxamed Ahmed, Bulsha TV, Jowhar.